waxaan soo marnay guri ay hortaagantahay haweeney. guriga hortiisa waxaa ku yaalay barrier aan ku qiyaasay 5 lagu dhiftay 5 xagga bad ahaan. waxaan ku dhahnay salaamu calaykum, aawa ninkaagii. waxay dhahday wuu dhintay, walaalaha wax xaruura. waxayna ugu jawaabtay haa, ma jiraa mid noo soo bixi karo carruurtaada ka mida. waxay tiri maya, kaali idinkuba arka. waan soo galnay, waxaan aragnay 4 cunug oo kan ugu weyn da'diisa aan ku qiyaasnay 15. dhammaantood waxay ahaayeen curyaan. waxaa ku dhacay xanuunka curyaannimada, xitaa ma kontarooli karaan gacmahooda iyo lugahooda. xitaa waxaan indhaheenna ku aragnay guriga wax firaasha may welin, shamiintada ayay jiifeen. hal qol ayaa ka wada dhexay dhammaantooda oo kushin iyo hooyo ah. xaqiiq gaajada ka muuqata awgeed dhammaantood waxay caloosha ku wada hayaan shamiintada iyagoon u adkaysan karin baahida. intaas waxaa usii dheereed mid walba waxuu cunayaa carabkiisa xanuunka haysta awgeed. waxaan ku dhahay kuwan ma carruurtaada? haa ayay igu jawaab. dhammaantooda oo wada curyaamo. waxaan ku idhi walaashay xaalka ma qiyaasno, xitaa yacni kursi oo lagu socodsiiyo ma haystaan miyaa? kursigaad ka hadlaysaa xitaa xafaayadaan uga koontaroolo nijaasta ma hayo. waadna u jeedaa da'dayda meeshay la ekaatay. xaqiiqa anigaa qaado marka suuligay u baahdaan. xitaa ma awoodo inaan cuntada si dhammaystiran u siiyo, waayo waxaan ka walwalaa waxa ay cuni lahayn meesha aan ka keenayo. carruurtaas ayaan haystaa ayay iigu soo gabagabaysay iyadoo ilmadu ka da'ay. ku xamdi ilaah haddii aad aragta carruurtaada iyo walaalaha oo lugahooda ku socdo oo caafimaad qabo. rabbina u mahad celi nimcada uu ku siiyo oo ah gacantaada haddii aad biyo ku cabi karayso. xaqiiq dadaana awoodin inay dhaqaajiyaan madaxooda xitaa. haddii fikir iyo wax dheeri aad hayso aad is leedahay barnaamijku way ka dhiman yihiin, waad noogu soo gudbin kartaa iyo mawduuca aad danaynayso. assalaamu calaykum.